بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حرمنا maanta inaan sharaxno wax yar farqiga u dhaxeeya finance and accounting haddaan ka bilaabno micnaha guud uu xambaarsan yahay mise micnaha laga wado accounting waxaa dhina accounting waxaa waaye process of recording financial transactions it means waxaa waaye accountingka wuxuu ka bilaabanaa inaan diiwaan gelino mise qorno transaction walba uu ka dhex dhaca company-geena accounting wuxuu ka bilaabanaa asiga markii aan sameyno sales mise markii aan anaga wax soo iibsano accountingka waxa waaye process dheer waaye processkaas waxaa laga bilaabaa markii koowaad waxa la recording then summarizing analyzing reporting these transactionskan ka dhex dhacay company-ga dhexdiisa in la record gareeyo waaye oo aan qorno oo ah waxaasaa maanta iibinay waxaana soo iibsanay intaan waxaa lagu bixiyay si deyn ah wax walba oo financial transaction ah oo ka dhex dhaca company-ga dhexdiisa in la qoro oo aan diiwaan gelino xogtaas waxaa laga diyaarin doonaa waxa la dhahayo financial statements laga diyaarin doonaa financial statementska waxaa waaye meeshii laga aqrinayay company-gan heerka uu taagan yahay haddaan rabno inaan fahno company-gan positionka uu taagan yahay meesha aan ka aqrisan lahayn wuxuu noqonaa waxaa waaye the financial statementskaas waa the financial statementskaas qofka diyaarinayana waxaa waaye accountantiga waa qofka accountantiga ah then financial statementskaas wuxuu iskugu jiraa saddexdan qeybo iskugu jira waxaa waaye marka koowaad inuu qofka accountantiga diyaariyo waxa la dhahayo balance sheet diyaariyo balance sheetka wuxuu ka kooban yahay saddex qeybood oo assets liabilities iyo equity oo ka kooban yahay xogta kaleeto oo laga rabo qofka accountantiga inuu diyaariyo waxaa la income statement waa income statement waxaa waa asigana wuxuu ka kooban yahay company-gan revenue-giisa expenses-kiisa iyo the net income-ka uu sanadkaas faa'iiday waayo statement-kiga kaleeto laga rabo qofka accountantiga inuu diyaariyo waxaa waa the cash flow statements marka xogtaas oo dhan qofka diyaarinaayo oo soo bisleenaayo accountantiga waayo haddaan u imaano finance wuxuu noqonaa the management of money simple waxaa waaye finance in la maamulo lacagta qofka lacagta haysto inuu maamulo oo ah how we spend sidee loo qarash gareynaa how we invest sidee loo maalgelinaa maxaa la maalgelinaa waxyaabahaas oo dhan go-aanay rabaan marka go-aankan waxa la maalgelinaayo inta la maalgelinaayo iyo inta deyn aan soo qaadanayno iyo inta deyn aan bixinayno waxyaabahaas oo dhan activity-gaas oo dhan waxaa go-aanka gaaraya waxaa waaye qofka finance-ga ah waaye sidoo kaleeto finance waxaa waaye in la barto qofka sida ugu fiican oo u maamuli lahaa lacagtiisa waaye isweydiinayna marka intay iska galaan xiriirka ka dhaxeeya wuxuu noqonaa accounting-ka iyo finance xiriirkooda wuxuu noqonaa in accounting-ka meesha uu ka dhamaado waxaa ka bilaawda finance-ga ka bilaawda marka waxaa waaye finance-ga wuxuu ku tiirsan yahay accounting marka finance-ga ma shaqeynayo accounting la-aan marka qofka finance-ga ah mar walba wuxuu u baahan yahay qof accountant ah si uu ugu soo diyaariyo xogtii financial statementska qofka finance-ga ah hadhow wuxuu isticmaali doonaa xogtii uu soo diyaariyo qofka accountantiga si uu hadhow go-aano ugu gaaro waay haddaan markii aan sheegin waxaan dhahnay finance is the management of money in la maamulo waa lacagtaan dhahnay markii laga hadlayo maamulka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye decision making waay qofka finance-ga ah go-aanada ugu weyn ee laga rabo inuu qaato waxaa kamid ah saddexdan go-aan ah kamid ah oo ah investment decision financing decision iyo cash flow decision qofka finance-ga waxaa laga rabaa inuu go-aan ka qaato waxaan maalgelinaa anaga marka laga hadlayo maalgelinta waxaa la lahaa purchasing a fixed assets or long term asset aa la example oo kale inaan soo iibsano machine xilli dheer ku yaalayo oo ku shaqaysan kartid inaad soo iibsatid investment marka inaan sameyno investmentigaas oo aan soo iibsano mashiinkaas oo aan ku shaqaysano qofka finance-ga go-aankaas gaarayo marka xogta uu ku gaarayo go-aankaasna qofka accountantiga soo diyaarin doono finance-ga wuxuu ku tiirsan accounting because of hadduusan qofka accountantiga xogtaas soo diyaarinin qofka finance-ga go-aanadan ma qaadan karo waa sidoo kale go-aanka xiga oo laga rabo qofka finance-ga inuu gaaro waxaa waaye financing decision financing waxaa laga rabaa waxaa waaye haddaan rabno inaan mashiinka soo iibsano waxaa isweydiinayna waxaa waaye lacagta aan ku iibsanayno mashiinka inta ka keenayna marka waxay noqon karaan debt financing or equity financing go-aanadan waxaa gaarayo qofka finance-ga qaadanayo
Go-aanka ugu dambeeya kaleeto oo laga rabo qofka finance inuu qaato waxaa waaye the cash flow decisions oo ah markii uu kambaniga income sameeyo, incomekiisa waxay noqon karaan retained earnings oo kambaniga meel loo dhigayo mise a dividend oo ah dadka shareholderska ah lacagta ay qaybsan doonaan. Marka go-aankana inta laga dhigayo a dividend iyo inta retained earnings noqonayso waxaa go-aanka gaaraya waxaa waaye qofka finance ka gaaraya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.